بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gebi ahaantiisba waxaynu ku soo qaadanaynaa maanta maalintii 14aad ayuu dagaalka bariga dhex maraya waxaana muuqanaysa Iran in la loodin la yahay duqeymo xagga cirka oo xoogan iyo sidoo kale duqeymaha maraakiibta gataalada sayriya ay ku hayaan wadanka Iran ayaa u muuqanaysa Iran wali in aan la jabin oo cududeedii ay dhisan tahay ciidamada Iran waxay wacad ku mareen in dhibicda ugu dambaysa dhiigooda ay u hori doonaan wadankooda isla markaasna ay wadi doonaan inay isdifaacaan hadda aqalka cad ee wadanka Mareykanka looga taliyo waxda dagaalka ee Mareykanka ee Pentagonka iyo xarumaha militariga waxa ka socda qorshaha ciidamada dhanka dhulka loogu diro wadanka Iran laakiin arintaasi ma sahlana barnaamijkan waxaan si gaar ah u dul istaagi doonaa maxay yihiin waxyaabaha dabiiciga ah ama rabaaniga ah ee Iran difaacaya haddaba xog iyo macluumaad amurahaasi ku aadan ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa soo dhawaada markale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka dagaal lagu macnaynayo inuusan lahayn hadaf ayna adag tahay in la gaaro ujeedooyinka ay ka lahaayeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u gudbaya toddobaadkii saddexaad Iran 28 bishii February waxaa lagu qaaday weerar muddo la qorsheynayay durba waxaa la diray hogaamiyihii sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei sidoo kale wasiirkii gaashaandhigga taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ee loo yaqaan IRGC ayaa la diray saraakiil muhiim ah oo ka mid yahay Ali Shamkhani oo xudun u ahaa isku xirka ciidanka iyo siyaasadda wadankaasi Iran ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii lagu dilay bilowgii weerarkan qorshaha iyo qariirada dagaalka oo lagu dejiyay kulamo ka dhacay aqalka cad madaxweyne Trump iyo ra'iisul wasaare Netanyahu waxay kala haayeen ujeedooyin cadcad saddex hadaf ayaana ugu waaweynaa tan koowaad waa in Iran awoodeeda la burburiyo qodobka labaad in meesha laga saaro hammi kasta oo Iran ay u leedahay in ay samaysato hubka nuclearka iyo in la burburiyo oo meesha laga saaro gebi ahaanba gataalada Iran oo halis ku noqday Israa'iil laguna tijaabiyay dagaalkii dhacay bishii June ee 12 maalmood socday hadda waxaynu arkaynaa sawaariikh kala duwan oo qaarkood guuxooda ka dheereeya Iran inay u adeegsanayso saldhigyada militariga ee ku yaala wadamada khaliijka iyo guud ahaan gobolka bariga dhexe iyo waliba Israa'iil ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ee loo yaqaano IRGC waxay sheegeen weeraradii ugu dambeeyay inay u adeegsadeen gantaalada Hormashaar oo waliba sita madaxyada ilaa 2 tan ah sidoo kale gantaalka Imaad Khaybar Shaakiin ay ayaguna loo adeegsaday weeraradaasi sidoo kale Iran waxay isticmaalaysaa gantaalada loo yaqaan Fatah ee hypersoniga ama guuxooda ka dheereeya dhowr iyo 10 goor haddaba dagaalka oo socda 2 toddobaad waxa muuqanaysa in aan la gaarin hadafyadii iyo ujeedooyinkii la dejiyay ee dagaalka la xiriiray sida khubaradu ay sheegayso hadda waxa miiska saaran qorshaha in ciidamo dhanka dhulka loo diro wadanka Iran Mareykanku wuxuu qorsheynayaa in ciidamo dhulka loo diro Iran waxaan sharaxi doonaa sababta tani u noqon karto qalad masiiba sababtoo ah Iran ma ahan sida Ciraaq waxay u dhisan tahay sida qalcad adag aan ku bilowno dhinaca galbeed iyo waliba koonfurta galbeed xadka galbeed ee Iran waxa ilaalinaya buuraha Zagros buurahani waxay ku fidsan yihiin xadka u dhaxeeya Ciraaq iyo Iran waxayna gaaraan dhanka Turkiga dhulka halkaasi ku yaala
waa dhul dhagaxyo badan sare oo aad u adag ma aha oo keliya buuro waa marino ciriiri ah oo aan dhammaad lahayn dariiqyo ciriiri ah iyo meelo ku habboon weerarada gaadmada ah waxaan horay u aragnay wixii ka dhacay halkaas markii 1980kii ciraaq ay weerartay iiraan ciraaq waxay lahayd qorshe cad wuxuu ahaa qorshahaasi inay qabsato gobolka saliidda hodanka ku ah ee khuzistan kadibna ay u sii gudubto gudaha waddanka iiraan si ay u burburiso nidaamka kacaanka islaamiga ee curtay sanad ka hor markii dagaalkaasi uu qarxay ama 1979kii ciraaq waxay haysatay taangiye aad u fara badan ciidamo xooggan iyo weliba taageero laakiin sannado badan dagaalkii ayaa hakaday oo horumar waa uu samayn waayey ciidamada ciraaq waxay gaareen dhulalka fidsan ee u dhow khuzistan laakiin ka gudbidda buuraha zagros iyo dhaqaaqidda gudaha iiraan waxay noqotay riyo aad u xun ugu dambayntii 8 sano kadib dagaalkii wuxuu ku dhammaaday natiijo la'aan taasina waxa ugu wacnaa sida ay u samaysan yihiin buuraha zagros buurahani waxay gaabiyaan ciidamada ilaa ay ka daalaan oo ay dhiig baxaan dhinaca kale haddii aynu eegno ama dhanka badda Caspianka waxaa ku yaal buuraha Alborz waa gidaar dabiici ah oo kale buurahani waxay ka dhigaan weerar dhulka oo ka yimaada waqooyiga mid aad u adag sidaas darteed iiraan waxaa laba jiho oo kala duwan ka ilaaliya buura ku gudban oo dabiici ah laakiin xitaa haddii ciidan shisheeye uu si uun uga gudbo xeebaha uga dagaalamo buuraha oo uu galo gudaha iiraan juqraafiyadda dhulkaasi mar kale ayay ku noqonaysaa ciidankaasi cadow iiraan waxay leedahay dhul lama degaan ah oo ballaaran sida saxaraha lut oo caan ku ah kulayl aad u daran halkaas oo heer kulka uu gaaro ilaa iyo 70 celsius ama darajo kani ma ahan dhul ay si fudud uga gudbi karaan ciidamo ballaaran oo waxaa ku burbura gaadiidka waxaa culays soo food saara gurmadka sahayda askartana waxay ka qaadaan daal iyo rafaad taasi waa sababta ay taariikh ahaan u adkayd in la qabsado iiraan ma aha dhul bannaan ama meel fidsan waa la kabyo difaac oo dabiici ah buuro lama degaan ah iyo masaafada dhulka oo aad u ballaaran haddii uu go'aansado Mareykanku inuu u diro ciidamo dhanka dhulka ah iiraan ma ahan oo keliya inuu dooranayo dagaal ee wuxuu dooranayaa dagaal ay juqraafiyadda dhulka xitaa ay la dagaalamayso taasina waa sida awoodaha waaweyn mararka qaar u galaan qalad masiibo ah sida khubaradu ay sheegayso haddaba xaaladahan oo isbiirsaday khubarada arrimaha militariga iyo kuwa istaraatiijiyadda waxa ay leeyihiin way adkaanaysaa in ciidamo Mareykan ah ay ka gudbi karaan buurahan oo xitaa haddii ay ka gudbaan oo cimiladana sidoo kale aysan ka hor imaan waxaa halkaasi ku diyaara kumanayaal kun oo ciidamo ah mas'uuliyadda Iiraan ayaa waxay sheegayaan ilaa iyo 150,000 oo ciidamada IRGC ama ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga inay u diyaar yihiin difaaca waddankooda waxaa kaloo dhanka sirdoonka wararka laga helay ay sheegayaan in ciidamada baasiijka iyaga qudooda aad loo diyaariyay waa ciidamo kumaankuna oo qaarkood isqarxiya dhammaan calaamadahani waxay muujinayaan halista ku gadaaman weerar Mareykanku uu ku qaado waddanka Iiraan oo dhanka dhulka ah gudaha Mareykankana waxay arrintani ka dhalisay dooda aad u adag xitaa xubno ka mid ah maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dood ka keenay arrintan marka laga tago xisbiga dimuqraadiga xubno ka mid ah oo si weyn arrintan su'aal u geliyay kadib markii kulamo albaabadu ay u xirnaayeen oo dhanka sirdoonka xog lagu siinayay xubnaha aqalka senadka iyo kuwa koongareeska haddaba arrintan waxay ku dabayn doontaa madaxweyne Trump ma qaadan doona go'aankan lagu sifaynayo halis loo bareerayo mise uu ka gaabsan doonaa waqtiga iyo waayaha ayaynu u daynaynaa intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga HBN waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn
hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa